الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan kusoo bandhigaynaa revisionka ama muraajacada maadada xisaabta ah taasoo macna ay soo diyaarsay jaamacadda City ama City University waxaana sii deynay barnaamijka ama ka baxaya Muqdisho Cable waxaana taabagelinta barnaamijka iskale waa Hormuud Telecom ama shirkadda Hormuud. marka sidaad ugu jeedaan waa maanta insha Allah maadada xisaabta fasalka 12aad waxaanu ku bilaabi doonaa trigonometry. marka barnaamijkan diyaarintiisa isku dubaridkiisa waxa iskale City University of Muqdisho ama jaamacadda City ee ku taal magaalada Muqdisho. muraajacada maadada xisaabta maadada waxaa soo jeedinayo muraajacada anigoo ah Maxamed Xuseen Xasan. insha Allah ku soo dhawaada qaybta hore. chapterka koowaad waa analytic trigonometry waa chapterka ugu hore xisaabta sida caadiga ah. xisaabta form 4 waxay ka kooban tahay 7 chapter ay ka kooban tahay. chapter koowaad waa analytic trigonometry ama trigonometry. chapterka labaad oo complex number ah. chapter saddexaad oo probability ah. chapterka afraad oo statistics ah. chapterka lixaad oo limits ah iyo derivative oo chapterka lixaad ah iyo integration oo chapter 7 ah. marka insha Allah maanta waxaan ku duubi doonaa marka qaybta hore oo chapter koowaad analytic geometry. marka analytic geometry maxaa la marka analytic geometry ama analytic trigonometry and analytic trigonometry maxaa la dhahaa marka waa nooc kamid ah trigonometry-ga taasoo inta badan ka hadasho ama khusaysa waxa loo yaqaan trigonometric functions ama fansaarada trigonometry-ga sida sin-ka, cos-ka, tangent-ga, cot, secant-ka, cosecant-ka kuwaas ay khusaysa in terms of their position in xy plane ayadoo macnaha ku sharxayso booska function-kan uu taagan yahay marka laga hadlayo xy plane. xy plane-tu waa waxa la yiraahdo Cartesian plane. marka definition aan marka di analytic trigonometry isku dayna qeexitaanka sidaan oo noqonaa oo analytic trigonometry-gu deals with trigonometric function macnaha wuxuu ka hadlayaa fansaarada trigonometry-ga ayuu ka hadlayaa in terms of their position wuxuu ku sharxayaa macnaha position-ka in xy plane. marka intaas waxa uu talagalay qeexitaanka oo analytic trigonometry. marka waxa la isweydiin karo waxa waaye chapter-kan oo analytic trigonometry loo yaqaano how many sections ama imisa qaybood ayuu ka kooban yahay marka waxaan ku soo saamargareeyay marka chapter-kan 6 qaybood waa 6 section ayuu ka kooban yahay. marka section-ka 1.1 waxaanu ku qaadan doonaa compound angles ama isku dhiska xaglaha wax loo yaqaano. section-ka 1.2 waxaan ku qaadan doonaa wax la yiraahdo double angles oo ah laba laabka xaglaha. section-ka 1.3 waxaan ku qaadan doonaa half angles oo ah barka xaglaha ama nuska xaglaha. section-ka 1.4 waxaanu ku qaadan doonaa product to sum identity macnaha midaalo oo taran ah ayaa waxa loo bedelayaa wadar ayaa loo bedelaa marka product to sum identity ayaa la macnaha midaalo ayaa haysta oo taran ah ama isku dhufashaa waxa uu bedelaysaa as sum. section-ka 1.5 waxaanu ku qaadan doonaa sum to product kii hore cagsigiis waaye oo midaalo oo waxa lagu siinayaa sum oo sugeyn ama wadar ah waxa uu bedelaysaa product ayaa uu bedelaysaa. section-ka ugu dambeeya oo lixaad waxaanu ku qaadan doonaa wax la yiraahdo trigonometric equation oo ah isleegyada trigonometry hadii noqon lahayn kuwa formkoodu yahay linear iyo hadii noqon lahaa kuwa formkoodu yahay quadratic way. marka section-ka koowaad oo 1.1 ah waxaan ku baranaynaa compound angles. compound angle maxaa la dhahaa? compound anglesku waa isku dhiska xaglaha waa inta badan waa imtixaanadu way ku yimaadeen ardayga waxa laga yaabaa in la dhaho waxa qiimeysa cos 15 degree sin 15 degree cos 75 degree cos 15 degree waxyaabaha noocaas oo kale ayaa ardayga waxa laga yaabaa qiimey. markaas oo kale wuxuu adeegsanayaa marka wax loo yaqaan compound angle. compound angle maxaa la waa isku dhiska xaglaha goorma yimaadeen macnaha mar walba laba angle la isku daro ama mar walba laba angle la kala jaro resultiga ama waxa soo baxayo ayaa waxa loo yaqaan compound angle la dhahaa. marka compound angle-ka marna sum noqonaya marna difference noqonaya. tusaale ahaan cos of a plus b marka dhaw waa sum, cos of a minus b marka dhana waa difference. marka compound angle marka waxa la yiraahdaa waa waxa loo yaqaan isku dhiska xaglaha waxay leeyihiin mar walba laba angle la isku daro ama mar walba laba angle la kala jaro ayay imaanayaan. marka section-kan marka oo compound angle-ka guud ahaan ardaygu wuxuu ku arki doonaa 6 qaacido
lix qaacido laba cos ayaa iska leh waa sum and difference laba sin ayaa iska leh waa sum and difference laba tangent ayaa iska leh waa sum and difference marka tusaalaha lixda formula markaan cos-ka ku hormaro tusaalahaan oo there are six formulas under this section maana section kan oo compound angle loo yaqaano waxa hoos imaanayo waxa loo yaqaan lix qaacido ayaa hoos imaanayo marka labada qaacido hore cos ayaa iska leh tusaalahaan cos of a plus b oo kale waa sum cos of a minus b na waa difference marka cos of a plus b oo kale marka rabna inaan qiimeeyno wuxuu la mid yahay identity aan cos a cos b minus sin a sin b ila cos markii uu israaca cos sin markuu guduhu balaaska ya cos of a plus b markuu yahay qaybta banaanka wuxuu ka yahay minus marka ardaygu laba qaab ay ugu imaan kartaa marka in la siiyo ayadoo macnaha condensed ah oo expansion ku sameeyo la dhaho ama in la siiyo ayadoo expansion ah oo condensed ku sameeyo la dhaho sidoo kale cos markaan difference uga shaqeyno cos of a minus b muxuu la mid noqonayaa cos a cos b plus sin a sin b qaacidadaas waxa iska leh waa cos-ka sidoo kale sin-ku marna waa sum marna waa difference oo tusaalahaan sin of a plus b oo kale muxuu la mid yahay sin-ku asi waa mixed waa sin marka sheegto cos ku xijinay kadib cos ay sheegay sin ku xijinay la cos-ku muxuu ahaa cos sin tusaalaha tafiri sin of a plus b oo kale muxuu la mid yahay sin a cos b plus cos a sin b waa formula lagu xisaabinayo sin oo sum sidoo kale sin oo difference ah sin of a minus b muxuu la mid yahay waa sin a cos b minus cos a sin b ayuu la mid yahay tangent a plus b muxuu la mid yahay asna laba qaacido kale oo leeyahay tan of a plus b wuxuu la mid yahay tan a plus tan b oo loo qeeyo 1 minus tan a tan b tan of a minus b muxuu la mid yahay tan a minus tan b loo qeybiyo 1 plus tan a tan b marka ardayga sectionka koowaad lixdan qaacido ayuu ku arkay lixdan qaacido waxa loo yaqaanaa compound angle identity ayaa loo yaqaanaa marka haddii aan example aan ka bixino sectionka koowaad waxa lagu dhigi karaa find the exact value of cos 15 macnaha waxaad heshaa qiimaha dhabta ah ee cos 15 marka waxa ku fikiraya marka taas oo kale aan xalinayno cos 15 degree marka koowaad waxaan ku fikirayaa 15 maxaan ku heli karaa 15 waxaan ku heli karaa ama 15 wuxuu la mid yahay 45 degree oo laga jaray 30 degree ama 15 waxaan ku heli karaa 60 degree oo laga jaray 45 degree like in this example waxaan isticmaalaynaa 45 degree oo laga jaray 30 degree marka therefore markaan furfurayno cos 15 degree waxaan u furfurayaa cos of 45 degree oo laga jaray 30 degree marka already waa cos difference waa ila boska A waxa ku jira 45 degree boska B na waxa ku jira 30 degree this one wuxuu la mid noqonaa marka cos A cos B meeshaan ka dhigi jirnay ayaa waxaan leenahay cos 45 degree cos 30 degree plus ila cos markuu intuu minus ka yahay plus aan leenahay sin 45 degree sin 30 degree hore marka waxaan soo barnay waxa loo yaqaan special angle isku sin 45 degree muxuu la mid ahaa waa radical 2 loo qeybay 2 ayuu la mid yahay cos 30 degree muxuu la mid yahay waa radical 3 over 2 plus sin 45 degree waa la mid cos ko kale waa radical 2 over 2 oo lagu dhufto sin 30 waa half marka waxaan sameeynaa fraction kan koriiso isku dhufo hoosiiso isku dhufo radical 2 radical 3 hadaa ku dhufato wuxuu ku noqonayaa radical 6 2 hadaa 2 ku dhufato 4 plus radical 2 hadaa 1 ku dhufato waa radical 2 times 2 na waa 4 fraction ka doosay isku mid yahay hala ka qaadanayna oo waxa leenahay radical 6 oo lagu daray radical 2 oo loo qaybiyo 2 marka therefore cos 15 degree wuxuu la mid yahay radical 6 plus radical 2 oo loo qaybiyay 4 oo loo qaybiyay 4 meeshan waa 4 sababta 2 times 2 waa 4 marka ardayga muxuu ka faa'iidaa marka in case hadii aad calculator haysato aad percentage cos 15 hadii aad geliso wax soo baxayo iyo radical 6 plus radical 2 over 2 hadii aad geliso wax soo baxayo labada waa isku mid oo meel kasto cos 45 aad ku aragto waxaad dhigi kartaa waxa la yiraahdo radical 6 plus radical 2 over 4 ayaa dhigi kartaa
waya waa like this waa qaabkan ayaa noqonaysaa oo hadda cos 15 oo kale maxaa furfuray waa 45 minus 30 marka kan waa cos of a plus b waa kan cos of a plus b maxaa loo furfuri jiray cos a cos b plus sin a sin b meel kastoo marka a 45 ku bedel meel kastoo b ana 30 ku bedel ugu dambeynna cos 15 waxa ku soo bixi doonta waa radical 6 and plus radical 2 over 4 ayaa ku soo bixi doonta way marka section labaad marka aan gudubno section labaad waxaynu ku qaadanaynaa wax loo yaqaan double angle identity macna midaalada laba laabka xaglaha hadda waxaan soo qaadanay waxa la yiraahdo sum and difference of two angles soo qaadanay like section kan ardaygu wuxuu ku baranayaa double angle maxaa waaye angle la laba laab sida wuxuu ku baranayaa 2a kale 2b oo kale 2 theta oo kale 2x oo kale 2y oo kale angleska noocan oo kale waxa loo yaqaan double angle la dhahaa marka double angle identities marka waxa la dhahaa waa midaalada laba laabka xaglaha marka ayagu meel kale kama imaanin ayagu sum and difference-gi ayaa laga soo dhaxburuufay ayagana waa 5 qaacido ay leeyihiin ila section-kii hore oo 1.1 ahaa compound angleska meeqo qaacidan ku soo baranay waxaan ku soo baray 6 qaacido laba cos oo leeyahay oo sum and difference ah laba sin oo leeyahay sum and difference ah iyo laba tangent oo leeyahay sum and difference ah marka qaacidooyinka inay ku kala saarnaadaan ayaa loo baahan yahay marka double angle identity-ga ama laba laabka xaglaha midaaladooda markaan ka hadlayno ayagu waxay leeyihiin 5 qaacido ay leeyihiin 5tan qaacido 3 kamid ah cos ayaa iska leh halna sin ayaa iska leh halna tangent ayaa iska leh tusaale ahaan marka raadinayo sin 2a sin 2 angle ama sin 2 theta maxay la mid noqonay waa 2 sin a cos a ayaa la mid noqonay cos 2a muxuu la mid yahay cos square a minus sin square a ayuu la mid yahay cos 2a muxuu la mid yahay 2 cos square a minus 1 cos 2a sidoo kale muxuu la mid yahay 1 minus 2 sin square a marka sida u jeedo marka cos 2a marna formuladan lagu xisaabaa cos square a minus sin square a marna isla cos 2a waxa lagu xisaabi karaa cos square a minus 1 marna cos 2a waxa lagu xisaabi karaa 1 minus 2 sin square a tangentiga oo double angle markuu yahay tangent 2a waxa lagu heli karaa 2 tangent a oo loo qeybay 1 minus tan square a marka qaacidooyinkan marka inaad sideeda ku xifdiso aaday u fiican tahay sababtoo inta badan imtixaanadu way ku imaanayaan example-ada sida u fudfudud oo kale ama qaacidooyinka sida u fudfudud tusaale ahaan markaan soo qaadano qaacidada koowaad oo sin 2a oo kale waxa laga proofi karaa compound angle identity hore waxa soo qaadanay sin of a plus b inuu la mid yahay sin a cos b plus cos a sin b qaacidadan iyada meel kasto a hadan b aan ku bedelno tusaale ahaan meel kasto b ah hadii a aan ku bedelno waxay noqonaysaa sin into a plus a oo la mid ah sin a cos a plus cos a sin a marka this one muxuu noqonaa sin 2a wuxuu la mid yahay inta sin a inta sin a inta cos a inta cos a wuxuu ku noqonaa 2 sin a cos qaacidada koowaad qaabkaas u soo proofan kartaa hadii aadna cos into a plus b ayaa naqin oo la mid aha cos a cos b minus sin a sin b ayaa naqin marka sidoo hore ku sameey replace meel kasto b waxa ku bedeshaa a oo waxay noqonaysaa cos of a plus a wuxuu la mid yahay cos a طبعا way isku dhacayaan marka labada angle isku mid noqdaan minus sin a marka cos a hadaan ku darno dabcan waa 2a wuxuu la mid yahay cos a ku dhufo waa cos square a minus sin a ku dhufo sin square a ayadana qaacidada koowaad oo cos 2a waa sida marka hore waxa sameyn kartaa qaacidadana laba qaacido kala keeni kartaa sababtoo waxa og tahay identity ah cos square a inuu la mid yahay 1 minus sin square a oo ku bedelay sidoo kale waxa soo baratay sin square a inuu la mid yahay 1 minus cos square a marka marna hadii booskan cos square a 1 minus sin square a aan ku bedelno waxaynu heli doonaa qaacidadan oo ah waxaan heli doonaa 1 minus 2 sin square a ayaa heli doonaa hadii mesela sin square a booskeeda aan ku bedelno 1 minus cos square a waxaynu heli doonaa qaacidadan oo ah cos 2a la mid tahay cos square a minus 1 marka ayaga waxa u maleynaa inaad fahanteen
marka waxa kale oo lagu weydiin karaa ama rabaa in aad ogaato taajantiga waxa soo bartaan a plus b inuu la mid yahay taajanti a plus taajanti b oo loo qaybiyay 1 minus taajanti a taajanti b marka markuu nooca yahay waa sidii hore sameynaya maadaama laba angle oo kala duwan a iyo b u yaalo isku ekaysi boos kasto a b ku bedel ama boos kasto b a ku bedelo isku mid marka hadda sida hore ku wadnay b ayanu a ku bedeleen marka meel kasto b a ku bedel muxuu noqonaa waa tan a plus a wuxuu la mid yahay tan a plus b waa kan maxaa ku bedelaa tan a oo loo qaybiyay 1 minus tan a oo ku dhacsan meesha tan b tan a maxaa leeyahay marka taajanti a ku dar waa 2a wuxuu la mid yahay tan a haddaan ku daro waa 2 taajanti a oo loo qaybiyay 1 minus tan square a marka ardayga waxaa la rabaa double angle marka laga hadlayo qaacidooyinkan shanta ah inuu xifdisan yahay qaacidooyinkan marada qaacidada taqaano waxa ku fududaanaya inaad ku shaqeyso ayaa ku fududaanayso way marka shanta qaacido koowaad waa sin iskale waa sida hadda practical ku geliyay saddexda qaacido kale waxa iskale cos qaacidada kale waxa tangent waa qaacidoonka hadda proofeeno way example-ka afiirina marka oo 1.2 waxa laga yaabaa revision-ka ina u qaato inuu aad u yar yahay waa lagu talagalay in la soo yareeyo sababtoo waxa waaye ardayga waxa la rabaa qaacidooyinkan inuu ku dabaqi karo example-lada wixii kale oo dheeraadna buugiyo haysta meesha ka heli karaa marka example-ka 1.2 maxaa lagu dhahaa marka given macna u qaado cos theta inay la mid tahay 3/5 saddex loo qaybishan ayaa cos theta u qaadanayna sidoo kale sin theta waxay ka yartahay 0 waxa laga rabaa inaan raadino sin 2 theta inaan raadino anaga waxa la siiyay given oo ah cos theta ayaa la siiyay maadaama cos theta la siiyay sin na loo diray double angle waxaan ku qasbanahay inaynu raadin karno sin theta inaynu keeno waxaynu ka fikireynaa angle-ka oo meesha yaalo oo macnaha ku qeexanta wax loo yaqaan sin-ku waxaan la dhaw waxay ka yartahay wax la yiraahdo 0 ay ka yartahay marada 0 ka yartahay taas macnaheedu waxa waaye inay dhacayso quadrant 3 ama quadrant 4 sida caadiga marka waxaan naqaanaa sin 2a wuxuu la mid yahay 2 sin a cos a marka dabcan hadda anagu waxaan la siiyay waxa waa cos a ayaan la siiyay oo theta iyo a dabcan waa isku mid hadaarto theta waa dhigi kartaa hadaartana a waa qaadan kartaa angle waa waxa waa isku mid marka sin 2 theta ayaan la ka rabaa sin 2 theta maxaa lagu helaa 2 sin theta cos theta ayaa lagu helaa marka cos theta waa aysan qiimaheena oo 3/5 ayaa la siiyay marka waxaan raadinaynaa sin theta maxaynu ku helaynaa waxaynu ku helaynaa radical 1 minus cos square theta ayaynu ku helaynaa marka waxaynu leenahay sin theta wuxuu la mid yahay 1 minus cos theta waa 3/5 ku bedel kadibna square garay waxaan leenahay sin theta wuxuu la mid yahay 1 minus haddii aan 3/9 square garayno 3/5 aan square garayno waa 9/25 already 1 kan hal hoose ayuu leeyahay marka sin theta wuxuu la mid yahay fraction kan ka shaqeey 25 hal ku dhufo waa 25 minus 9 oo loo qeylana isku dhufo waa 25 wuxuu la mid yahay marka 25 hadii 9 aan ka jarno waa 16/20 oo loo waa radical 16/25 wuxuu la mid yahay marka 16 hadaan square root ka saaro waa 4 25 marka square root ka saarno waa 5 maadaama sin ay ka yartahay 0 dabcan waxaynu siinayna waa negative marka sin theta waxaan soo baxay -4/5 su'aasha la weydiiyay hadaan ka jawaabi karaa waxa la weydiiyay sin 2 theta inaan raadi waxay la mid tahay 2 sin theta cos theta marka maxaa sameynaysaa marka waxay la mid tahay 2 sin theta qiimaheeda meeqa waa ka sin theta qiimaana ku soo baxay -4/5 marka booskana dhigaysa oo booska sin theta waxa dhigay -4/5 okay inta cos theta ku yaala cos theta meeqana la siiyay cos theta waxana la siiyay waa 3/5 analysis marka meeshan waxaan ku bedelaynaa lagu dhuftaa leeda waa 3/5 okay waxay la mid tahay marka 2 hadii -4 aan ku dhufto -8 waay -8 hadaan 3 ku dhufto waa -24/25 therefore marka su'aashan la weydiiyay ahayd sin 2 theta su'aashan la weydiiyay ahayd sin 2 theta waxay la mid tahay
24 over 25 intaas waa minus 24 over 25 ayuu noqonayaa saas waa next aan fiirino marka waa ka sida caadiga ah first waa inaad soo raadisaa sin theta using that formula qaydadaas isticmaalayo kadibna hadaa ku kala bedesho ugu dambeyn maxaa ku soo baxayo sin theta ayaa raadis minus 4 over 5 kadibna waxaa raadinaysaa su'aasha lagu weydiiyo kadibna waxaa raadinaysaa macnaha su'aasha lagu weydiiyo oo ah sin 2 theta marka maadaama cos theta 3 over 5 soo heshay sin theta lagu siiyo sin theta minus 4 over 5 soo heshay hadii aad ku kala bedesho ugu dambeyn waxa soo baxay minus 24 over 25 soo baxayso